بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ibrahim Cilmi halkan waxaan doonayaa inaan kula wadaago sheeko kooban xilliyada kamida waxa jiray nin boqor ah oo boqortooyinka Carbeed kamida ninkaas wuxuu lahaa wasiiro badan waxa ku jiray wasiiradiisa kamida oo gacantiisa midig ah kuna magacaabnaa wasiirka maaliyadda ninkaas wuxuu ahaa wasiir shaqo badan si hanti lunsi badan sidoo kalena wasiirkii hantiga dawladda aad buu ugu takrifalay waanu cunay in badan oo kamida boqorkii muu ogeyn waxa soo hawla iyo waxa dhacay oo dhan maalmaha kamida wuxuu ogaaday wasiirkiisa inuu musuqmaasuq aad u badan ku kacay dabeetana wasiirkii uu xiray boqorkii markuu xiray wuxuu ku xukumay in wadooyinka magaalada wadada ugu weyn lagu xiro dushiisana lagu shubo malab fara badan markii sida lagu sameeyay boqorkii sida ku sameeyay ninkii wasiirka ahaa waxa ku soo ururay dhammaan xasharaadkii iyo cayayaankii ee deegaanka ka dhawaa oo dhan waxaana loo diray koox ilaalo ah oo askar ah kooxdii ilaalada ahayd askarta ilaalinaysay markay gaadhay duhurkii way qada tageen mid kamid ah askartii ayaa ku soo noqday waxaanu isiri ka didi xasharaadkii cayayaankii dhakadiisa saarnaa markuu isiri ka didi ninkii wasiirka ahaa ku yiri iska daa hayga didina sababtoo ah haddaad iga dadiso kuwan dhargay waxa igu soo yaaci doona qaar gaajoonaya oo idhibi doona kuwan dhibkooda weega yaraaday waayo way dhargeen